kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya saakay waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka wixii warar ay soo kordhay xalay ilaa saakay xaalada bariga dhexe. haddaba saakay xaalku wuxuu u muuqdaa xalay inuu ahaa mid degan sababtoo ah ma jirin ilaa saakay ma arkin xisaabtii u socotay Mareykanka 13 u maraysay xalay ee habeen hore marka xalay ilaa saakay wax weerar oo xisaaba oo ka soo baxay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ma jirin. taas macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay inaan wax weyn xalay dhicin oo weerar ah. dhanka kale Iiraan laftirkeeda wax weyn oo weerar ay samaysay saakay oo ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka ma jiro marka laga reebo Kuwait iyo Bahrain iyo Urdun oo saddexduba sheegay inay drones la dagaalameen oo ay qaarkood soo rideen sida ay sheegeen. marka العموم حالة جود مركا ساكي وح علص أو درن يورر علص ولا إسلاف صدي ورباهنتو كما قرنا ومعناها هذا مركو حوي هاي حالة وحوجا وحاجري دجرانشو dadku marka waxay u kala saarayaan deganaashadaasu ma deganaashihii hore loo sheegay Mareykanka in alaabtii ka yaraatay oo gantaalihii iyo wixii ay ka yaraadeen miyaa mise deganaansho kale oo fursad la siinayo dhanka wada hadalka maadaama shalay wafdi Cumaan ka socda ay tageen Iiraan qamiistii u tagay ra'iisul wasaaraha Ciraaq wafdi kale oo Pakistan Shiinaha ay joogeen wasiirka arrimaha dibadda oo sidii bal arintii wada xaajoodka loo soo marka arimahaas oo dhan marka way isku furan yihiin wali marka wax waro rasmiya laga mahayo laakiin xaalku xalay wuxuu u muuqdaa inuu ka deganaa sidoo ahaa habeenadii ka horeeyay xaaladu marka sidaas ayay saaku ay waagu ku baryaal leeyahay waayahay marka waxaynu bilaabaynaa wararka dhanka badacas. xalay saqdhexe Saudi Arabia ayaa weeraro culus waxay ku qaadeen goobo ay sheegeen inay ku sugnaayeen Xuutiyiinta isbahaysi waaye Sacuudiga wuxuu leeyahay at-tahaluf isbahaysi Sacuudiga hogaaminayo waxay yiraahdeen waxaynu weerarnay Xuutiyiinta kadib markii loo adkeysan waayay tallaabooyinka ay qaadayaan. shalay galaba ugu dambeysay markab kale haddana weerareen Xuutiga iyagoo hore laba markab kale oo Sacuudiga leeyahay u weeraray marka Sacuudiga wuxuu leeyahay waa naga badbadiyeen nimanka marka waa xanaaqnay sidaas marka aan u weerarnay. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa ku qaaday weeraro dhinaca cirka ah magaalada la yiraahdo Xudayda. dhanka kale Xuutiguna waxay wacad ku mareen inay aargudan doonaan oo ay ka aarsan doonaan Sacuudiga. warbaahinta taageerta jamaacada Ansaarullah ee Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa saakay waxay sheegeen in xalay mar 4 weerar Sacuudiga uu ku soo qaaday magaalada la yiraahdo Xudayda iyo jasiiradda la yiraahdo Kamran ee ku taala galbeedka Yemen. haddaba warbaahinta waxay sheegayaan Xuutiyiinta in dhanka isgaarsiinta magaalada Xudayda ay la kulantay weerarka inuu khasaare u geystay waxaana ay sheegeen mid kamid ah dadka ka shaqeynaya isgaarsiinta dhismayaashoodu inuu halkaa ku dhaawacmay weeraradii xalay ay soo qaadeen Sacuudiga. wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegaysa dad goobjoogayaal inay sheegeen in dekada Xudayda ay la kulantay qaar kamid ah weerarada Sacuudiga uu ku qaadayay halkaas. safiirka Saudi Arabia u fadhiya dawladda Yemen Mohammed Al-Jabiri ninka la yiraahdo ayaa sheegay Sacuudigu inay markaa ku dadaali doonaan inay dhanka wada xaajoodka iyo nabadda wax kasta ku xasiliyaan laakiin xaaladu ay ka sii darayso marba marka ka dambeeya. xafiiska siyaasadda ee Ansaarullah Xuutiyiinta ayaa sheegay weerarada Sacuudiga uu ku soo qaaday goobaha Xudayda iyo jasiiradda Kamran inay noqon doonaan kuwo markaa loo aargudi doono. hore waxaynu u sameynay ay yiraahdeen Xuutiyiinta go'doomintiina la saaray waxaynu ku bedelnay go'doomin inaguna aan saarnay dekadaha haddana weeraradan waxaynu ku bedeli doonaa weeraro annaguna aanu ka geysano gudaha Saudi Arabia. marka nimanka Xuutiga waxay leeyihiin weerar marka hore xayiraada la saaray annaguna xayiraada ugu bedelay
haddana dagaal nagu soo qaaday weeraro toosa annaguna waxaynu ku bedeli doonaa weeraro toosa marka yaa dhib qabaa leeyahay sacuudiga iyo xuuti maxaa laga cunaa meeluu shidaal ka dhoofsado iyo meeluu shidaal ka soo saaray waxba malaha sacuudiga isagaa shidaalkiisa iyo dhulkiisa shidaalka iyo shirkada Aramco iyo dhulkaasoo dhan ninkan markaa halis badana sacuudiga marka kasoo food saari kartaa leeyahay dagaalkan marka waa arki doonaa kullay sacuudiga iyo xuutiga arintooda meesha ku dhamaataan jabaada xuutiguna halka ay saldhigto iyo weerarada ay qaadaan waa arki doonaa laakiin waa la hubaa nimankanu hadday dhaartaan way fuliyaan saacado kadib ha qaadeen ama maalin kadib ha soo qaadeen laakiin weerarkan ku bedeleen hadday yiraahdaan sacuudigu marka hawshaa way u taalaaleeyaan marka xaalku halkaasuu maraya waayahay dhanka kale marka waxaa soo baxaya warar sheegaya madaxweynaha Mareykanka in uu hanjabaad hawada u mariyay Shiinaha iyo Ruushka odaygu waa shakiya la leeyahay nimankii sirdoonka Mareykanka waxay leeyihiin Iiraan intaan ma iska kaana celin karto annaga meesha waxaa ku jira nimankaana ku lifaaqan Ruush iyo Shiinaysa ku jira marka ninkii Trump ahaa aflabadiiyo qaylinaya haddaba markaan idin tuso wakaalada wararka ee Anadolu waxay leedahay Trump wuxuu digniin u diray Shiinaha iyo Ruushka asagoo uga digaya inay wax huba ka iibiyaan Iiraan haddaba warbixintan way sii socotay waxaa leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aaminsan in Shiinaha iyo Ruushku aanay ku soo tarax tagaynin oo aysan soo galaynin dagaalkan u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan iyagoo hub ka iibinaya Iiraan haddaba taa haddii ay dhacdo waxaan uga digayaa ayuu leeyahay tallaabadaasi inay noqon doonto mid aan u fiicnayn maslaxadda labada dowladood marka ninkan marka wuxuu leeyahay waa ka digaynaa xog buu hayaa marka ku saabsan in hub ay helayso Iiraan hubkan lagula dagaalamayo xoogiisa inay halkaa ka imaanayaan laakiin warbaahinta iyo sirdoonka Mareykanka xogo ay soo gudbiyeen waxay leeyihiin hub in la siiyo Iiraan waxa uga qiimo badanba oo uga fiican tallaabada ay qaadeen Chinese-ka oo ah satellite-yada Chinese-ka inay Iiraan u shaqeeyaan taas maxay u fududeysay gantaalkii ay soo ridaba Iiraan inuu ku dhufato meeshii ay rabto oo uu Mareykanka joogo yaa u sahal ayaa la leeyahay satellite aqmaaru sanaaciga ee Shiinaha shirkada ay leeyihiin ayaa siinaya Mareykanka marka waxa jabiyay oo dagaalka saldhigyadiisii baabi'iyay oo wax walba basaasay waxa leeyahay arikaas waay Iiraan marka maxay u baahneed arikaas u baahant satellite-yadan waaweyn casriga Iiraan ma haysato Ruushka iyo Mareykanka iyo Shiinaha iyo kaliya haysta iyo dalalkaas marka ayadu alaabta weyn ma haysato marka alaabtan ka adeegaaleed satellite-yadaas la siiyay marka tan ugu daran marka waxa leeyahay odaga hub la gaday uu ka hadlaayay satellite-ka way leeyihiin warbixinada soo baxaya haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera ayaa warbixin dheer ka qoray wuxuu leeyahay Shiinaha iyo Ruushku waxay kaalin ka ciyaareen dowr muhiim ah waliba in la beegsado oo Iiraan ay garaacdo saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka haddaba warbixintu way sii socotay wargeyska la yiraahdo Guardian ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa sheegay in Iiraan ay u suura gashay in dagaalka ka socda bariga dhexe awoodeeda ay ku soo bandhigto iyadoo markaa bartilmaameedsatay saldhigyada Mareykanka iyo goobaha muhiimka ah ee gobolka ku yaala iyadoo markaa isticmaalaysa kana faa'iideysanaysa satellite-yada markaa warbixino ay siiyeen haddaba waxaa la sheegayaa in ay markaa isticmaalayaan satellite-yo ay leeyihiin shirkado Chinese haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay satellite-yada Shiinaha ayaa waxay u fududeeyeen Iiraan inay
bartilmaamaysato iyadoo aan la gafayn goobaha maraykanka uu ku sugan yahay ee gobolka. haddaba arrintan markay soo baxday qaar ka mid a shirkadaha satellaydyada iskale ee Shiinaha, maraykanka ayaa wuxuu ku soo rogay cunaqabatayn ayuu ku soo rogay isagoo ku eedeynaya inay xogaha iyo sawirada u gudbiyeen Iiraan. dhanka kale waxaa la sheegay inay Iiraan ka leexatay oo aanay marnaba isticmaalaynin hanaanka la yiraahdo GPS ee uu maraykanku leeyahay ee caalamka inta badan la isticmaalo. haddaba Iiraan waxaa u fududeeyay weeraradan inay maraykanka kaga takhalusto hanaanka la yiraahdo Baidu oo Shiinuhu leeyahay oo sida GPS oo kale u shaqeeya, iyo hanaanka kale ee la yiraahdo GLONASS oo Ruushku uu leeyahay oo isaguna sida GPS oo kale u shaqeynaya. marka gantaal ridaysid ama wax ma hagaajinaysid waa inaad hab isticmaashid hanaan gantaalkaaga ku haga meesha. marka maraykanku muxuu leeyahay GPS kaas ayaa adduunka inta badan laga isticmaalaa. GPS ka marka isagaa iska leh, haddaa isaga inaad ku soo weerarto damacdo ma weerari kartid oo tashwiisha lagaaga furaya. marka maxaa la siiyey GPS dhan iska dhaaf, alaab Ruushku leeyahay, alaab Shiinuhu leeyahay, abkaasaa la siiyey wax leena ka adeegta. sawiradiina waa kuwaan. marka waxaa leeyahay Iiraan maxay uga baahantaa marka taageero intaa ka badan miyaa jirta? hubkiina waa haysataa, iska dhiciya dhehe, dhagaha ka garaac. marka ninkii odagaa marka xaalku waa ku xun yahay. shaaka la leeyahay qayluu bilaabay, wuxuu yiri waxaan u digayaa Shiinaha iyo Maraykanka maalka Shiinaha iyo Ruushka ayaan u digayaa u leeyahay. marka warkaas waxa uu ka mid yahay wararka sida weyn maaragtay aad looga hadlayo oo la leeyahay Iiraan kaligeed Maraykanka ma jibin, kama adkaanin, saldhigyadiisa ma burburinin, askartiisa ma laynin, ilaa waxaa meesha kula jira Ruush iyo Chinese la leeyahay. marka hawshaas halkaas maraysa. waayahay qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkeena ugu horeeya maanta warbixinada aynu soo ururinay saakay waxaa ka mid ah ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa digniin culus u diray Maraykanka. haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay wacad ku mareen inay beegsan doonaan askari kasta oo Maraykan ah marka ay iyaguna dilaan oo ay dhibaateeyaan dadka Iiraaniyiinta ah. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa leeyahay taliyaha xarunta Khaatimul Anbiyaa ee taageerta ama ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ninka la yiraahdo Generaal Cabdillaahi ayaa sheegay inay askarta Maraykanka toos u beegsan doonaan marka ay Maraykanku iyagu duqeymaha ku beegsadaan dadka Iiraaniyiinta oo ay dhibaateeyaan. haddaba warbixin lagu baahiyay xalay telefishinka Iiraan ayuu ninkaas sargaalka ahi ku sheegay inay markaasi aad uga canaaqsan yihiin dadka rayidka ee Maraykanka weeraradiisa ku dhintay ee Iiraaniyiinta ah labadii toddobaad ee markaa dagaalka tooska hadda uu socday. marka hadda wuxuu leeyahay askari Maraykan u maqan qof Iiraani ah hadday dhibaato soo gaarto. marka hanjabaadaas iyaduna wararka ugu dambeeya ka mid tahay. dhanka kale maxaa ka soo kordhay meesha la yiraahdo Hormuz waxaa leeyahay wax ka jira oo cusub ma jiraan marka laga reebo Maraykanka oo sheegay inay weerareen markab ay sheegeen inuu u socday Iiraan oo uu jabinayo cunaqabataynta dhaawacna ay u geysteen markabkaas oo la rumaysan yahay in Iiraaniyiintu ay leeyihiin. marka wax kale oo cusub oo hadda Hormuz ka soo kordhayna ma jiraan. waatii xalay waa la socoteen in Ingiriiska iyo Maraykanku ay abaabul wadaan waa furaynaa meesha ay leeyihiin, laakiin warar badan oo soo baxay waxay leeyihiin arrinkaas waa iska hanjabaad iyo afwaayo, meesha furitaankeeda ma sahlana la leeyahay. Iiraan in lala heshiiyo maahane xooga lagu maraa cid ku mari kartaa ma jirta la leeyahay. haddaba marka wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa saakay soo kordhay. inta aanu mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan.